waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal Shukbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlaynaa Shukbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar musti aqoon abu lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kulaadlo ana oo kulkulba ana kulaadlo kala hadla arrinka Sharbu boy iyo waxyaabo ku saabsan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن شافعي كورتي سيدو كله يوتيوب channel ka daawanaysan wa Shaafici Kurti fadlan haday tahay markii ugu horeysay soo dhawow subscribe noo saar si aad mid noqoto qaybta kale u joogtay hadii aad hore noo joogtana aad mahadsan tahay habka wanaagsan ee waliba noo joogtay kaga mahad celinayna aad arabna inaan ka hadalno muuqaal macnaha haystay baraha bulshada waxa waa sheegnil oo dabcan baraha bulshada bariyahan dambe wala isku haystay sida wada ognahaba waxa waa si kala un baa la soo faram muuqaal mogta qofba si baa qof loo faram muuqaaya dabcan baraha bulshada dad badan aan ognahay magacyadooda aan rabin aan ka sheegno ay kulli u shadnayd bariyahan marka ninkan waa nin la yaqaan dabcan laguna bartay mujaajileysta ama riwaayadaha inuu sameeyo waxa waaye qisada ku dhacdana waxa waaye dad ad laftigaagu aan laftigayga ma rabo inaan video badan inta badan soo bandhigo laakiin waxaan jeclaan lahaa hal iyo laba inaan ka tuso si aad u ogaataan ninka magaciisana waxa la Shukbaaba dabcan waa yar jooga Nairobi social media isticmaalo youtuberna ah laakiin inta badan lagu bartay inuu sameeyo filmaanta ama mujaajileystayaasha wuxuu sameeyay inuu qaaday ama wareysi dadka jooga Nairobi inuu wareysi yar kooran ka qaaday siday u arkaan ama ay fikradoodu ay tahay yani Sharma boy iyo ninkii la jiray sheeg arimihii dhaxmaray dadku ay falalka qaldan u falcelinayeen Sharma boy iyo ninkii la deeq darajaba dadku falal qaldan ay u falcelinayeen deeq darajo dabcan YouTube-kiisa uu gatay Sharma boy YouTube-kiisa uu gatay lacag buu ka siistay labada nin oo saaxiibadan hab qaldan oo waxa waaye laga sheekay karan baa la soo diray marka wareysi buu qaaday wareysigaasna wuxuu ku wareysanaa dadweynaha meesha jooga Nairobi asagoo dadweynaha rabay inuu ogaado fikradooda asagana ay wax soo saarkiisa ay tahay maadaama uu yahay qof YouTuber oo hadana talent loo baraha bulshada ku jira marada baraha bulshada ku dhex jirtana waxa tahay wariye loo baahan yahay inuu soo gudbiyo wixii xaqiiqada iyo wixii nod wariye kale inuu kan yahay kan warka tabiyo wariye qof kasto oo maanta social media isticmaalo ama YouTube dhex fadhiyo wariye waay wax kasto oo dhaca sidoo xaqiiqada ay tahay inuu soo tabiyo laga baahan yahay okay walaalkeen wuxuu sameeyay dadku ay wareysi ka qaaday dadkaasna ayuu weydiiyay fikrado kala duwan okay barnaamijku ku dhameystay walaalka waxa dhacday in la soo wacay kadibna la dhahay inuu waa ku baahanahay labada nin aad ka haleysay ayaan waxa waaye xog yar kaaga haynaa waxaan rabnaa inaan noo imaadi kadibna si yar oo waxa waaye sarbeeban ama kadis ah ayaa gaari lagu ritay kadibna waxa la wacay Cabdirashiid yarka ninka askariga Nairobi joogo dabcan wada garanahay bulshada askari ama sargaal Kenya ah laakiin asalkiisu yahay Soomaali kadibna waxa dhacday in macnaha sheekadii adiga si guda dheeraatay oo ninkii xaaladiisa ani ma kaga sheekeenahay sidan ayaa u dambeysay walaalkeen bal hal iyo labo wax ka soo dhaha soona daawada muuqaalka insha Allah aad mahadsantii waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal Shukbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlaynaa Shukbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar musti aqoon abu lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kulaadlo ana oo kulkulba ana kulaadlo kala hadla arrinka Sharbu boy iyo waxyaabo ku saabsan waxay yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxaa dhacday dhalinyartii ila u tago markaan u tago inay gaari igishtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna ina wad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxa liigu qorwacay ninkii yiraahdo Axbarshiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna anigu waxaan siri hadii aad kabutid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Axbarshiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada
ragga wax dhaco ragga doonida wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mana ku jiri ugu dambeyntii waad aragteen walaalkeena xaaladdu la soo kulmay waxaad filanayn horta waa adag tahay si aad waxa waaye aan ma rabin yani inaan muuqaalkan qof kasta uu soo bandhigo waayo qof kasta oo yani naxariistiisa ama dareenkiisu uu dareemaya videoga inta badan mana daawo karo marka sidaas awgeed ayaan yareeyay inaan macnaha inii soo bandhigo dad badan dabcan way soo bandhigeen laakiin aniga waxaan jeclaystay inaan intaa yaroo kooban aan kaga soo bandhigo kulay ka soo daawateen runaantii waa wax laga xishoodo ninka walaalkeena waa nin talent laguna yaqaan inuu soo bandhigo filmaanta ama riwaayadaha waxaana dhacday in maanta xaaladan uu ku jiro in macnaha ay u geysteen Soomaali asaga waa Soomaali haddana dhalinyar kale oo walaalihiis oo Soomaaliya in xaaladan maanta ku jiro ay u geysteen aad baan ugu xunahay taas waayo waxa waaye qofka walaalkaaya waxa waaye ina maanta aad sugu soo xilqaantay in macnaha aad ku disho ama aad mustaqbalkiisa qilqil ku geliso ama xaaladan oo kale aad kula kulansiiso adoo u socda hab dagaal ee qarannimo ayna hab qabiilnimo u socdo oo duulaan u ah wax laga qurux badan yahay runaantii lagana xishoodo qof kasto dareen lana ay aad waxa waaye ugu xishoodo waxaan leenahay arrimaha noocaas oo kale taa dabcan baraha bulshada bariyo ugu dambeeyay waxa loo isticmaalay hab qaldan oo ay ku dheehan tahay qabiil iyo waxyaalo kala duwan runaantii waxaas waa wax laga qurux badan yahay isqa qabsi iyo waxyaalo waxa waa loo joogin maanta jiilka socdo ama soo baxay hadii la kulmaan waxyaalaha noocaan ay baraha bulshada ka socdo ayaguna waxay ku dhaqmayaan wixii markaas ka socdo meesha baraha bulshada ayay ku dayanayaan marka adiga waxa laga baahan yahay maadaama dadka dambe asla tahay qof ku dayasho macnaha noqo qof ku dayasho mudan yani maadaama wixii dadkii hormuud u tahay samee wax laga daydo ama noqo mar walba qof ku dayasho mudan laakiin hadii aad sameeyso wax cunugi yara oo maanta ficilka qaldan uu ka sameeynayo ama uu ka sameey karo hadad sameeyso oo aad ogtahay inuu sameeynayo yani wax faa'iido ay ku soo kordhinayso dadaalkaaga ma lahan dabcan dunidan waa wax yar oo kooban dabcan qof kasto joogana waxa laga baahan yahay inta joogti in wax wanaagsan aad soo bandhigto bulshadana aad la wadaagto si bari ka maalin lagu aqoonsado waxaas aad sameey jirtay mar walbana waxaad wanaagsan inaan anaga 100% aan ka socono maskaxdeena ama madaxeena yani wixii aan rabnana inaan maagno taasana dhaqanada Soomaaliya laakiin degdeg mar walba Soomaaliya waxa dhahdaa howsima hal baa la siistaa degdeg mar walba laga qurxoon yahay waxaan horta soo ogow sida ay yihiin habka ay u socdaan waxa ay ka socdaan ma ahana ku degdegno isla markiiba walaalkeena waan ka xumahay waxa ku dhacay waxaan filayaa taas inay u noqon doonto cashir hadda ka bacdina uu soo day qof intuu si kadiisa ugu waco uu sidaas fudud uu sugu tagi doonan waxay noqon doontaa inuu islaala doono taasna ay cashir noqon doonto habka wanaagsan ee muuqaalkan u dhameystiratay dhamaad ilaa bilow aad baan kaga mahad celinayna haddaad nagu cusub tahay fadlan soo dhaw subscribe noo saar channelka sidoo kale la wadaaga khayartaada asxaabtaada cusub dabcan aan u baahanahay inay ka soo muuqdaan ayagana kuna soo dhawaadaan team Shaafici Kurite inta ku kulmayna videogan video waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh